رمضان كريم دمانتين مرلوات كانوا وحنو مهد علينا يا شعب كرير بوه الله السيدة شرفت له
تلميذ لأنه بيسود ويميال هذه أبان وهم هذا علينا مسؤوليتها شيئين سرقني لما أنت روحان كوضا هذا اللي دانتا ينبت قليدة سيدي لوضوض الشقين له سفر نرمى مسوق الله هذا وان رمضان وان إذا السلامنا سب وحدنا وايد كور رمينا هدي الله كدقو قول بانا لدي رجيني السلام عليكم انت كدي هدي فيفا فايسو dadka inta badan waxa jirta warar la soo qala saddex mar la sheegayo in hadii aan dhahno dhinaca Soomaaliland oo hogaamiye kula soo hadlay qaab dhinaca nabadeed ah warka maxaa ka jira su'aasha aan dib ku weydiin nabadu waa muqaddas waana waajib danta noolaha ku iyo nabadu ku jirta xabadu xalma olka warf ma lagu deeyay nabad in lagu wada noolaado cid walba danba ugu jirta taan ka wada hadalnayna waa taas ta in laga wada shaqeeyo loo baahan yahay waa taas in ciidamada la kala qaado in dadka isku deegaanka aan kala maarmi karin la nabadeeyo in waxay maxaabiista la isdhaafsado la sidaayo in dadkani waa Soomaali meel la kala tagi maayaan wadada wada dhasho isku deegaana in nabad buuxda cid walba nabad dadka ugu jirta la helo كل يوم شخصي هان مبدئيا بأنا مسنين وأنا كشقين أنت أنا ويا أنت ملاحظة كودا حضرلي وأنا سكودا أفكرني دمانتو إن سن بذا وحدي اللي بيتر الله وحليه إن ضروري بقى كداش حبضنا حلمة وأنت ويا أنت كودا حضرلي واحد شرى دفر بدل نبض جديدا علادنا وحكترين دد نبضنا جديدا علادنا وحبكترين باشرة kuwa waxaan leenahay waxba la idin ka weydiin maayo nabad waradeedaan waxa weey mar haddaan colaadaba wax ka tareen nabadana waxba la idin ka weydiin maayo reer buu hoolay nabad ka gooda sida colaadu uga goodo yey nabaduna iyaga uga gooda waxa la yaala wixii xal ah nabad lagu gaaray ama nabad lagu helayna waxa weeye waanu qaadaynaa waana soo dhaweynaynaa waana samaynaynaa waana in laga gudbo weeye nabadda laga hortegayo marka la soo qaado laga gubanayo nabadda waynu u baahanaa beelaha dariskeena baa u baahan wada hadlaalo heshiiye nabad yaanu ka wada hadalnay mas-uuliyiintaas iyana waa u diyaar cid nabad baryaysaa ma jirto cid walba waa u baahan tahay inta laga ka qabtaa hogaamiye inay dhinacooda ay ka fusho maadaama aad si nabad ayaa dhowr jeer horna soo noqdeen in hadda ka war nabad lagu hadlay balse ay suurtagal weeday rajaynta laga ka qabtaa leeyahay adigu mar walba aniga rajadayda nabadu way fiican tahay haddii aad tiin buu hoolaya aad ugu horeyso la kulmasa marka kulay reer buu hoolaan u yimid waa is wareysanayna isku talaanu nahay isku dan baanu nahay isku meel baanu u jeednaa isku hadaf baanu nahay wixii ay iyagu yihiin baa waa tahay hogaamiye dadka siyaasadda dalalisan waxay kugu eedeeyaan arrimaha nabadda oo kale marka laga hadlayo inaad fikirka kale ku tahay oo aadan dadka kala fashan maxaad ka dhigaa haddii la sheegayo aniga laygu eedeynayo inaan anigu nabadda keligay rabo maaha eedeyna waa wanaag iyo ammaan weeye nin nabad qof binaadama nabad laguma eedeeyo ummaddan reer buu hoodlana waa shacab colaadana yaqaana nabadana yaqaana colaadana looma tilmaamo nabadana looma tilmaamo hogaamiye haddii aan su'aal kale ku weydiiyo markii la kulantay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siinayo taageerayaal badan oo dibadda iyo gudaha kula ayaa is weydiiyay sababta keentay in hogaamiyihii hore si uu la kulmo rajaynta laga ka qabtaa in taageerayaasha kale ay dib ay u hanato qofka hogaamiyaha marka ugu horeysa isagoo ka duulaya danta shacabka ayuu ku tallaabsadaa tallaabada uu u arko inay danta shacabkiisa ku jirto midda labaad waxaa jirta geesiga nabaddu geesiga colaadu waa geesiga nabadda taasina waxay dhaxal siinaysaa mar haddii maanta aanay dhaliili haysan reer buu hooble mar haddii ay muujiyeen inaan cidina khasbi karin waxaan jeclahay inay muujiyaan
inay hoggaanka nabaddana yihiin inay nabad ku raadiyaan soo dhaweeyey maanta Dr. Salabaan Ciise Axmed hogaamiyihiisa waa sidee dareenkaaga maanta aad iyo aad buu fiican yahay aad iyo aad baa dareenkiigu fiican yahay hogaamiyuhu kulamada uu galay ee uu xambaarsan yahay hadafka nabadda ayaanu aad iyo aad u taageeraynaa aad iyo aad baanuna u soo dhawaynaynaa halganka dheer uu galayna waxaanu aaminsannahay oo aanu qabnaa inuu nabad ku raadiyey إن شاء الله تعالى هذه أدبان وقرب تاجنا. ديجان كانوا مقصودين وين أولاً وعندنا أنا أمير علي سيد شرف سلام قيمة قلة نلوسو دوي سبيشال نلوسو دوي هجامية أنت كبعدي كل نبض وشيء نقوله باهي سيد الشاغبة وحنو باهن كل هذا وحي أراد النبوة اللي كتير تأسان في لي الله وصلنا أي دجال كتيرني halkii bayna taagan tahay wax soo kordhimo jiraan waxaan khasaarnaa ama dhig iyo dhimasho inuu soo kordho haddii aynu helayno nabad oo dhulkeena nabadana waqacay waxaan u baahanahay haddii aynu weynanayno awood isticmaalna dadka awooddeena hayo oo wax laynooga fadhiyo labadaba waa shay muhiim ah xasan nuurley marka ugu horeysa waxaan dhammaantiin dadweynaheena sharafta leh ee soo dhaweeyay gudoomiyihii hore Salabaan Ciise Axmed oo wafti ballaaran hogaaminayay oo inuu ku yimid magaalada Buuhoole dhammaantiin waa idin salaamaya salaan kadib fikirkaygu maanta aad iyo aad u sareeya si sharaf leh oo daacad iyo midnimo iyo qarannimo ay ku jirtaan ku soo dhaweynay gudoomiyaha hawlaha faraha badan ee ballaaran ee uu qabtay haddii ay ku reedin awalba taabanayana aad iyo aad baan ugu garab taaganahay waana ku hambalyeynana ilaahayna waxaan ku rajaynaynaa guul iyo sharaf iyo wanaag inay ugu dhamaadaan fikirkiisa wanaagsan ee aanu la garab taaganahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi rahmaani rahiim waxaan soo dhaweynaynaa gacan furan ku soo dhaweynaynaa ku salaamaynaa hogaamiyaha SSC Salabaan Ciise Axmed waxaan kaloo salaamaynaa dadweynaha u soo diyaar garoobay soo dhaweyntiisa waxaan kaloo soo dhaweynaynaa qodobada ay kaga wada hadleen isaga iyo hogaamiyaha Somaliland dalka dabadiisa ee ahayd nabadgelyada ayaanu soo dhaweynaynaa waxaan leenahay nabadgelyadu waa nolosha qofka bini'aadanka hadduusan nabad helin nolol ma jirto waxaan leenahay qof kasta oo maanta Soomaaliya jooga waa arag buu ku yahay dhibaatada waxaan leenahay qof kasta oo maanta buuhooda jooga inagu buuhoodan baynu maanta ka hadlaynahay inaad waxaanu kaa codsanaynaa oo weliba kugu amraynaa inaad soo dhaweyso nabadgelyada waana u taageeraynaa waana soo dhaweynaynaa nabadgelyada iyo wixii ka shaqaynaya ummadan Buuhoole soo dhaweysay hogaamiyaha Salabaan Ciise aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay waxa uu nooga warramay ana haddaan dhalinyarada codka dhalinyarada ku hadlaya marka hore dhalinyaro iyada dhimata runtii iyadaana nolosha u baahan waxa weeye waxaan u baahannahay horumar nabad iyo nolol dhalinyaradu ayadaa damiirkeeda iyo dadnimadeeda iyo tiradeedaba gacanta ku haysa ma aha cid in loo abaansanayo waa ku soo dhaweynaynaa hogaamiyaha odayaasha sharaf yagoon adduun hay nimankii abuure caadnaagu howlgalay inkastoona tirin abalkoodu wuxuu yahay ama nagu xasuustee waa laydin aaminay idinkoo aqoon inamada la doortiyo abanduulahoodow madaxilkeediyo amaana idin saarale haddii aad lowdeen waa iga ogaysi waa iga ogaysi
أقول أدون هاي لمن كي أبوري